guud ahaan hadalhaynta Soomaaliya waqtigan waa howlgallada ay iska kaashanayaan ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka ee looga soo horjeeda Al-Shabaab guud ahaan wadanka gaar ahaan gobolada Galgaduud Hiiraan Baa Bakool iyo Gado waxa ka socda howlgallo dadka deegaanka ay kaabayaan ciidanka militariga Soomaaliya saacadihii ugu dambeeyay in ka badan 15 deegaan ay la wareegeen dadka deegaanka iyo ciidanka militariga Soomaaliya oo iskaashanaya ayna ku bilaabno gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya wararka naga soo gaaraya tuulooyinka hoostaga magaalada Baxda iyo Cada Kibir ee Galgaduud waxa ay sheegayaan in dadka deegaanka oo waa berigii hore ee saaka ka ruqaansaday deegaanada hadda aan ka waramay inay gaareen tuulooyin iyo deegaano hor leh oo muddo ay Al-Shabaab maamulayeen dadka deegaanka iyo ciidanka daraawiishta Galmudug ee iskaashanaya ee saaka ka dhaqaaqay deegaanada kala ah Baxdo iyo Cada Kibir ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka la yiraahdo Dhuumoodle kaas oo ka mid ah deegaanada ka tirsan gobolka Galgaduud ee muddo ay maamulayeen Al-Shabaab sidoo kale dadka deegaanka ayaa qorshahooda ugu weyn waxa uu yahay in la wareegaan deegaanka Qayb oo in ka badan 10 sano ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab waana deegaan fariisiin weyn u ah Al-Shabaab oo dadka ay ku maxkamadayaan isla mar ahaantaasina fariisiin weyn ay ku leeyihiin haddii deegaankaas ay la wareegaan dadka deegaanka iyo ciidanka dawladda waxuu noqon doonaa deegaan weyn oo gobolka Galgaduud ka tirsan oo Al-Shabaab laga saaro waxaana wixii halkaas ka dambeeya ay noqon doontaa in dadka deegaanka iyo ciidankaba ay la wareegaan deegaano iyo tuulooyin hor leh kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay gaar ahaan sanadihii la soo dhaafay gacanta Al-Shabaab ku jiray waxaana wixii halkaas ka dambeeya dadka deegaanka ay u ruqaansanayaan magaalada Xaradheere ee gobolka Galgaduud oo in ka badan 10 sano ay maamulayaan kooxda Al-Shabaab isla wararka gobolka Galgaduudna ciidanka militariga Soomaaliya ee ka dhaqaaqay magaalooyinka Gurceel iyo sidoo kale Dhuusamareeb ayaa la wareegay saacadii la soo dhaafay tuulooyin iyo deegaano hor leh oo hoostaga magaalooyinka Dhuusamareeb Ceelbuur iyo sidoo kale Gurceel iyo Ceel Dheere ee gobolka Galgaduud ciidanka militariga Soomaaliya oo ula socda taliyaha guud ee ciidanka militariga General Odawa Yusuf Raage ayaa saacadii la soo dhaafay la wareegay deegaanka Labadulle oo ka tirsan deegaanada hoostaga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya mas'uuliyiin ka mid yahay madaxweynaha Galmudug iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ayaa waqtigan ku sugan jiidda hore ee dagaalka deegaanka Labadulle ee gobolka Galgaduud waxaana sidoo kale deegaan ku sii qulqulaya saraakiil kale oo military iyo xildhibaano kuwaas oo doonaya in tuulooyin iyo deegaano kale oo hoostaga magaalada Ceelbuur ay la wareegaan markaana gobolka Hiiraan sida ay sheegayaan warar saacadihii la soo dhaafay soo baxay dadka deegaanka iyo ciidanka militariga Soomaaliya oo iskaashanaya ayaa la wareegay magaalada Moqokori oo ah magaalo halbowle u ah Al-Shabaab isla mar ahaantaana muddooyinkii ugu dambeeyay gacanta ay ku hayeen dadka deegaanka iyo ciidanka militariga oo iskaashanaya ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada Moqokori oo gobolka Hiiraan ka tirsan isla mar ahaantaasina ay ku sugnaayeen saraakiil sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab dhinaca kale wararka naga soo gaaray inta u dhaxaysa magaalada Halgan iyo sidoo kale Booco waxa ay tilmaamayaan Allah u naxariistay in halkaasi gaari u saarnaa taliyihii ama sargaalkii u qaabilsan dhanka saadka ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan guutada shanaad in halkaasi miin ay kula qarxaday waxaana la tilmaamayaa in ugu yaraan 2 askari iyo sargaalkaas ay ku geeriyoodeen inta u dhaxayso Halgan iyo Booco deegaanka la yiraahdo oo qarax uu ka dhacay isla wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in inta u dhaxaysa magaalooyinka Beledweyne iyo deegaanka Booco la yiraahdo uu ka dhacay qarax miino kaas oo haleelay mooto bajaaj ay saarnaayeen dad shacab ah ugu yaraan 2 qof oo rayid ah ayaa halkaasi ku geeriyooday sida dad goobjoogayaal ay ku soo warameen guud ahaan dalka waxa ka socda howlgallo ka dhana Al-Shabaab sidoo kale gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya waxa isna maanta ka cortay howlgallo ay hogaaminayaan ciidamada nabad sugidda iyo sidoo kale kuwa militariga ee ku sugan gobolkaasi ciidamada ka dhaqaaqay magaalooyinka Balad Xawo iyo Garbaharey ayaa la wareegay tuulooyin hoostaga magaalooyinkaas aan kor ku soo xusay iyagoona sidoo kale sheegay in dhankooda ay ka dhaqaajin doonaan howlgallada ay ku doonayeen inay kula wareegaan deegaano cusub oo ka tirsan gobolkaasi haddaba daawade halkee ayay ku dambeyn doonaan howlgalladan ay hogaaminayeen dadka deegaanka iyo ciidanka militariga ee Al-Shabaab saacadii la soo dhaafay lagala wareegay deegaano iyo tuulooyin ay muddooyinba gacanta ku hayeen fadlan aragtida waxaad noogu reebtaa qaybta hoose warbixintan